maanta oo ay bishu tahay 12 Abriil ahna sanad guuradii ka soo wareegtay maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan doonayo inaan halkan uga hambalyeeyo ugana bogaadiyo dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiisha saraakiil xigeenada alifleyda dableyda xaasaskooda iyo caruurtooda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sida waa astaan qaran oo aan marna loo qaybin karin qolo iyo qabiil waxayna u taagan yihiin oo loo tababaray difaaca iyo ilaalinta haybadda qaranka Soomaaliyeed waxaan soo marnay marxalado badan oo kala duwan waxaan la dagaalanay welina aan la dagaalameynaa kooxaha argagixisada ah si aan dalka uga sifeeno waxaan ka gaarnay guulo waaweyn oo lagu naaloon karo hase yeeshee wax badan yaa weli noo dhiman waxaan dadaal xoog leh ugu jirnaa sidii aan u soo celin lahayn sharaftii iyo haybaddii ummadda Soomaaliyeed ay adduunka ku lahayd waxaan ka shaqeynay inaan xiriir wanaagsan oo is-ixtiraam iyo istixgelin ku dhisan aan la yeelanno waddamada adduunka iyo kuwa gobolkaba waxaan dib u habeyn ku sameynay dhaqaalihii waxaan la dagaalanay musuqmaasuqii kobcinta dhaqaalaha dalku wuxuu ka mid yahay tiirarka ugu muhiimsan ee dhismaha qarannimada sidaas awgeed waxaa sidaad la socotaan ay dowladdu ahmiyad gaara siisay sidii dib loogu yegleeli lahaa habdhaqan dhaqaale oo na gaarsiin kara himilooyinkeena qaran annagoo arrintaas ka duulayna waxaan dadaal dheeraada ku bixinay sidii deymaha nalooga cafin lahaa iyo sidii aan kor ugu qaadi lahayn dakhliga gudaha waxaa alla mahadiisa ah inaan ku guulaysanay inaan si hufan aan uga soo baxno dhammaan shuruudihii nalagu xiray oo aan gaarnay yoolkii aan kula heshinay hay-adaha lacagaha adduunka iyo bangiga adduunka iyo bangiga Afrika iyo kuwo kalaba arrintaasi waxay dhalisay in inta badan deymihii nalagu lahaa nalaga cafiyo inta hartayna insha Allah waxaan ka shaqeynaynaa sidii nalooga cafin lahaa mustaqbalka soo socda waxay arrintaasi ku timid kadib markii aan muujinay hufnaan maaliyadeed iyo mid maamul wanaag in caalamku ama adduunku nala qiro shaqada aan hayno oo dowlad wanaagga ah